boqolaal cod oo qurxoon oo ay shimbiruhu ku codsanayaan inay dhegaystaan xigmadaha aan kuu soo wada ayaan maqlayaa. sidoo kale gooha libaaxa iyo banaaxiga lo'da ayaan maqlaa, sagaaraduna meel aan iga fogeyn ayay ka madaaraysaa. dhammaan codadkaas oo idil waxaan ka doorbidayaa sida qurxoon ee aad ii dhegaysanayso. waa xirmo xigmado ah oo aan ka soo xulay xis iyo maan xeeldheeri koobsaday ee igula raaxayso. dadka qaarkood waxay leeyihiin cudurka dhaleecaynta wakhti walba, way ilaabaan wanaagga dadka kale, keliya waxay sheegaan qaladaadkooda. waa sida duqsiga oo kale, kaasoo ka fogaada wanaagga iyo meelaha nadiifka ah, saldhigtana meelaha xun oo dhaawaca keena. sababtoo ah tani waa xumaanta ku dhex jirta nafsadda iyo dabeecadda xun. dembiyada waxay sababaan waxyeelo, alle u soo laabashadana waxay tirtirtaa waxyeellada. xuska alle wuxuu qalbigu ugu yahay sida biyaha ay kalluunku ugu yihiin oo kale. fiiri waxa ku dhaca kalluunka marka biyaha laga saaro. alle ciqaab walba oo ka timaadda waa cadaalad nadiif ah, naxariis walba oo ka timaadana waa nimco. awoodda qalbigu waxay soo laabataa marka qofku uu towbad keeno. waxay u tiirinayaan qaladyada adduunyada, kadibna waxay ku gabyayaan adduunyada ayaa isbeddeshay. haddaba adduunyadu maynan isbeddelin, waayo adduunyadu ma ahan mid u saaxiib ah caqli ilaa ay haleelaysa isbeddelka quluubta, akhlaaqda iyo nafafyaasha. bilowga iyaga ayaa isbeddela ee dunida ma beddesho. imise dan aynu lahayn ayaa ahayd sida riyada, allahna uu kaaga dhigay sabab xaqiijintooda. hawlwelin hana ka istaagin weligaa, iskudayga wax walbaa waxay leeyihiin xigmad, kuna dheganow riyadaada, laga yaabay inay kuu rumowdee. dunidu waa madarasad weyn oo daruus lagu qaato. natiijo walbaad ka dhaxashana kama qaadanaysid waxaan ahayn shahaado geeri ah. haddaba ku borogaraami maskaxdaada inuu kaa xiga wax walba wad, allahna xasuusnow mar weliba. waxaa jira mid ku riyoonaya guul, waxaa kaloo jira mid soo kacaya aroortii si uu u xaqiijiyo guushaas. haddaba garo guushu afka ma ahan ee waa ficilka aad samaynayso. wax walba oo noloshaada ku dhacaya waxay leeyihiin laba natiijo oo kala ah natiijo wanaagsan ama natiijo u baahan inaad ku gaarto natiijada wanaagsan. dhacdo walba oo kugu dhacdana waxaa lagaa rabaa inaad ku dadaasho sidii aad u wanaajin lahayd. waxaa jira shakhsi kuu hadiyeynaya jacayl adigoon waxba u hadiyeynin. waxaa kaloo jira qof kuu hadiyeynaya niyadjab iyo xanuuno kadib markii aad u hadiyeysay wax walba. haddaba ha raaraacan cilladaha si walba uu cafiskaagu u qurxoon yahay. waxay u jirayaan xasuusaha nolosha si daruus loogu qaato, kuwa maqanna waxaa loo soo qaadan keliya tusaale. haddaba adigu ka muuqo tusaale walba oo wanaagsan. noloshu waxay shabbahdaa boosajada tariinka, dhammaan waynu iskugu nimaadnaa, balse ugu dambayntii qof waliba wuxuu wajahayaa dalxiiskiisa u gaarka ah. aad ayaad u daalaysaa goortii aad raacdo hadallada niyadjabka leh oo ay kugu dhahayaan kuwa ku hareero jooga. aniguse waxaan ku leeyahay iskaga jeeso jaahilka. saaxiibtinimadu waa kelimad qaali ah, qof walbaana ma helayo. quruxda dunidana waxaa ka mid ah saaxiib kuu rajeeya farxaddiisa ka hor. ku dhaawac qofka runta, balse marnaba ku farxadgelinin been. haddii aadan aqoon u lahayn qofka, ku sharaf maladaada wanaagsan. qofka uu daaliyey samirka noloshu ma dhaawacdo. qofka gartaana qiimaha jacaylka wuxuu harsadaa midhihiisa. qofkii la qaybsadana farxadda kuwa kale wuxuu dareemaa qiimaha bani'aadamnimada. ha u oggolaanin inay kaa ogaadaan dadka jecel jabkaada waxaanan ahayn farxaddaada. yaysan arkin waxaan ahayn dhoolbirkaada. haddaadse cidhiiri dareento qur-aanka ayaa ah jannadaada. haddii ay ku xanuunjiso kelinimada, allaha ka sarreeya samada u dir dacwadaada. haddayse ku weyddiiyaan akhbaartaada, ku xamdi allaah oo dhoola cadday. ha ka yeelin duruuftan kugu hareeraysan inay daciifiso iimaankaagii iyo yaqiintaadii iyo maladii wanaagsanayd ee aad allaah ku qabtay. allah haddii uu doono wuu ku siin wixii aad rabtay, balse isweyddii sababta lagaaga soo daahiyey. ogow daahitaankaasi inuu khayr kuu yahay. alle wuu garanayaa wakhtiga munaasibka ku ah ee uu kaaga farxin lahaa, wuxuuna kaa doonayaa keliya inaad xusto in badan, uuna arka adiga oo garaacaya albaabkiisa. maxaa ka wanaagsan naftaa u fasiranaysa wax walboo hareeraheeda ahaaday khayr, aananna ka malaysanaynin kuwa kale waxaanan ahayn khayr.
haddaynan kala kulmin iyaga wanaag ay u cudurdaarayso taladana u dhiibanaysa rabbigeed oo ma nimcad ka weyn baa jirtaa laabtaada oo dareemaysa nabadgelyo rabbiyow ina sii awood inagu filan taasoo aynu ku dhammaysan karno hadafkeena rabbiyow ina hanuuni oo noogu khatim noloshan inagoo hayna waddada saxda ah rabbiyow sidee baan u murugoodaa adigoo ay naxariistaada ka waasacsan tahay wax walba rabbiyow abaalkeena ka yeel jannatulfirdowsi alaclaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh